waxaan jeclahay inaad iska caawisaan oo aan dilay kanaga maalinkan maanta ma aragtay cabaas ka joogno laakiin aan ma ka yiraahdo dadkaas aan ka hadlayaa 5 daqiiqo dabeedna codsi baan sameeynaya karkaas haynaga dhaco karkaasi waa ka igu daran haynaga dhaco dadka la haybsooco ee aan magacyadooda taqaaniin ee inala nashay ee inaga mid ah ee aynu takooray aynu diidayna wax la cunno oo wax la cabno oo kala guursano oo iyadoo aan la garanayn waay dadkan maxay ku garabsadeen waa ila bini'aadamka waxa lagu ciqaaba dib uu sameeyay aan ilaa hadda Soomaaliya la garanaynin dadkani sababta ay takooran yihiin boqolaalka sanadood culayska sidii xambaarsana dulmiga ah ee qulgooyada ah sabab laga dhigto baqtiga cunaya waxan oo baqtiga dilaya cid joogto oo duu soo wadi baqti xataa la cunay maanta jooga baqtiga cunay aynu goynay gumnimada si kale uu naqaana laakiin gumnimadu waa farabalnaanta sabqashan qofkaas waa gumnimadu wax kale ma aha waa farabalnaanta qofku wixii dhisayay ee asturayay uu baalu gacantiisa ayaan hayn gumnimadu halkaas ka timaada gumnimadu waxay uga timi laba sababood oo maaragtay labada aan doonay soo kuba laakiin bii sheego saawada ta kun waxay ku noqdeen laba wax kun waxay ku noqdeen lul male dhulka ilaahay dhulku ma laha gobol male degmo male wasiir male nin ganacsataa male baabuur male oo hadduu baabuur soo ciido fuuli mayso hudheel male oo hadduu fuulo ciido geli mayso qofka intaas oo dhan ka faramarani miyaan gu noqonay sida kale gun ku noqdeen aan kuu sheego waxay gun ku noqdeen aan ku milicsiiyo kaalintii ay ku lahaayeen inaga nolosha inta kale noloshooda waxay tugi jireen bindida waxay tugi jireen bilaawaha ama tooreyda waxay tugi jireen waranka waxay tugi jireen fallaada waxay tugi jireen kabaha waxay samayn jireen mudaca haanta lagu talo waxay samayn jireen maxaarka abjadka lagu talo waxay gudi jireen waxay tugi jireen gudinta inta oo dhambe waa inuu ku dhistaa ninkii xoolo dhaqatada ahaa balse nin xoolo dhaqato aan reerkiisa garanaynin gudintii uu ku oodilaa sida loo tumo nin xoolo dhaqataa oo aan garanayn kabihii uu ku xoogsan la xoolaha ku raaci lahaa ku ilaalin lahaa aan tolanayn abjadka qof intaa farsamaatiriyay intaaba ninka reerbiga xoolo dhaqatada gobta ay reebali intaaba ka farmaraya intaaba kala haya intaaba kana la daba taagan wuxuu ku noqday inuu ka kale inta ku dhiso oo ay soo galay gudintayda ku siin maayo ilaa 20 qaalmood keento meel allaale meel u dhaqaaqo kaasi garan maayo niba laga sheegay intuu nin u dhiibay intuu lacag u tiiri kabo iitol ayuu ku soo noqday markaas uu ballamaysa kabihi waxaan ku tusayaa aqliyada ninka kale kabihi bay dhamaysa baa buu yiriyo wax kale ma dhicin masaabiirta qoysa
ما مغشى مسابير قويدة سيبالي وحوصة قاتي وكنتزي يعني كاتالي جيسة وحا وباهيدا ويتاسا وقابو قديتي ولا حاو بالك كحنا حدنا أنا غوصي لا قدين لوتمو حدنا كيتو ما يكو قويسا يا تنمدا يرغى نمدا وحدنا كنا سكا كل سيهاي qofkii ilaahay ka yaabaya waxa inaga maqan xadkii baynu ka baxnayo de xaqa ayayna garanayno iyo waxa macnaha sameeyay umadaas jirta ko waxay sameeyeen ilaahay laba shay buu eegayay mudada dheer ay culayska sideen wuxuu eegayay barurta iyaga sabirkooda inay dulmiga inta leeg iyagu wax lagu siinayaa inay xamiraad dulmiga inta leeg ko wuxuu ilaahay kale eegayay ummadda dulmigaasi dhex yaala bal inay maalin ku baraarugto oo ay dulmiga inta leeg iska dhex qaato ilaahay labadaas u sugayo labadii dhiilkoodii waa buuxsamayo waad maqasheenoo markii aynu iska dhex qaadi weynay gaalaa u timi gumaysiga waa taqaaniin ummad kasta markuu doonayo soo dhex galo francisca ay leedahay ayuu ku soo huladaa ma midabaa ma luqadbaa ma diinbaa ma dhaqanbaa ma dhaqaala yani waa inadaa marin dee nimankii gaala u timiyo waxayna wada raraynaa dibaddaa loo soo wadaa waxbaa waa la soo kaxaynaya waa la soo rarayaa halkay maraysa waa maxay mana laale markii la yidhi dadkii caynkaas habaa rarayaa fiisayaa la siinayaa laaleerayaashii waa soo yaaceen aryahe ariga fiisaysi maalintiiba tol la noqdo arwaa fiisaysi markii dambe waxay yaahdeen mid walba wuxuu waa bal haddii aan fiisayno waa intaas soo aan haybta gabayaha ay kala bar aan haddii ilaahay ka dhigo maartay dee sheegtee hadda walle aan sheegtay haybtooda iyo qaba iyo jilibadooda ii kala sheeg xafudaytanina waa guul waa nasri u soo socda oo kaasi ugu horeeyo in nimankii afka taagi jiray la dheerayaasha sheega jiray ay maanta iyagii saxabada hoos hayaan ay ku leeyihiin haybtaada ii sheega ku sheegtee yaana idin doonan kow waa la rarayaa waa la keenayaa waxbaa la barayaa dabeedna horta qadiyadooda caalamka oo dhan bay gaarsiinayaan marka caalamku ogaadana hiil bay helayaan markay hiil helaanna iyagoo wax bartay oo tol yeeshay ayaa la keenayaa banaan maayaane waa la soo kaxaynayaa oo dalkii baa la keenayaa dabadeedna wixii dhacayaa intaas soo boqoloo sannadood diciil qabay de maanta waxay dhici karayaa markay nimanku guushii qaadan weynay ilaahay wuxuu soo diray cid qaadato oo ilaahay ka dhigo maalinkan maanta maaragta intay kaxayso wax ka soo dhigto soo celsaydo ku garab jirta ku dhista halkaasoo ay markaa ku aargutaan marka dadka caynkaas